أنا قيمي كيكو قرانكي ما آذا قبادي مدونا إيا قاصحي إيا قرع مرينكيس magacaygu waa Muxuba Axmed Suleymaan Muxuba Qayma waxaa joogaa waddanka Australia Melbourne waxaan waligeyba jeclaa dhaqankeennii Soomaaliya baadiyihii barkii sababtoo waxaan ku dhashay baadiyaha Soomaaliya gobolada dhexe ku dhashay Kalkacyo baadiyaheeda magaalada tuulo yar baan imaanay tuuladii markaan imaanay waxaan dhisanay guri cariish ah cariish waxaan deganay qol cariish ah hal daaqad leh hal albaab daaqad kale gadaale waxaa dhisay walaalahay iyo aaba gacanta ku dhisay anigana waa la dhisi jiray marka haddana aniga sameeyay dhisay kama mar waxadii dadka beeraha banaanka marka waa kana cariishkii albaabkii laga galay daaqadii gadaale dabaysha ka baxaysay noloshaydii labaad aqalkayga labaad cariishka ahaa waa kana عريشكي كبعد هذانا نولش هو إثبت شيء وحلو بدلي قري سرا سيدا هذا قريهان كنا هذا كل حجرة كله أنا جا أنتي با وسرلي ولا يمد وحاسبي هاركي كو أقل كي جهرة أو هارك كسر ما يصنع يو عاوزكي يجيدها وسوق هذا وادسي كبعد هذانا سيمبل وحاسبي أقل كي كيو ير أو عريشكي مركز ضمبي عن سوق oo isagana ka samaysnaa ulo carshaantii isagana kasna waa sameeyay in aqalka in badan baan aruurinayay oo dhaqankeeni markaan wadanka imaaday Australia markaan imaaday waxaan arkay geedaha aad ka u quruxda badan iyo cawska aad ii soo jiitay ka bacdi waxaan ku fakiray inaan dhaqankeeni aan dib u sameeyo sababtoo aan jeclaa caqabado badan way iga hor imaadeen waan in badan baan raadiyay sidaan ku heli lahaa cawskii iyo geedihii aan ku heli lahaa oo dhigaha uga sameyn lahaa ugu dambeyn saan midba meel uga soo keenayay laamba meel uga keenayay cawsba meel xaluulaysi waxa waaye geed markuu yar soo qaadidba waxa leeyahay cawski waa soo xaluulayay ilaan caws badan soo jiray maahan ka bacdina aqalkii waa weyneeyay markaas aan weyneeyana waxaan ku fakiray inaan gurigeyga ka dhex dhiso oo aan sartay aan deganaa aan guriga aan ka dhex dhiso marka aan ka dhex dhisay waa ku guuleystay inkastoo wali aanan gaarin meeshii aan rabay oo aan rabo inuu maalin banaanka u bixi doono